haba dawladdiisii loo bixiyay madax ka noolku waa baabuur Japanese oo aan buudi weyn lahayn wax badan lagu qaadi karo madaxay marka isagu marba geedka uu hoos fadhiyo yaa dawladdii tahay wuxuu doonana ku kacayo dhibaato badanna waa lagala kulmay nooantii waana xanuunkiisa iyo intii waa ma caafimaadkiisuna ma fiicnayna waa tibeerkii laga bedbedelay على حال arrintaas annana waqti badan baan gelinay iga rumayso priority inaanu iyaka ku bilowno oo waliba Ali Ciise Cabdi oo door weyn ku lahaa dhismaha Khaatumo oo dhan hadda sabab ilaa hadda jooga institute eesha uu madax ka yahay aad buu ugu dhaganaa inaan Puntland wuxuu aad isugu haleynayay Cabdi Wali oo saaxiibana reer Washington DC isla ahaayeen in aan laga quusan taasuu aad ugu dhaganaa waqti badan baan gelinay laakiin Faroole iyo isaga iyo ka hadda jooga midkoodna waxaan ahayn aan kugu shirtago waa xamar markaan tago aan noqdo ana intan oo dhan iga tirsan yihiin wixii aan xamar ka rabo marka waa inaan ka helaa ama prime minister madaxweyne waa salaan dadka meesha joogaan dadun loo isticmaalayo wax meesha yaala Puntland la sheegaysa meesha ku murmaysa wax on the ground maamul jiro oo Puntland leedahay ma arkaysid ciidamo ay leeyihiin ma ay jiraan haddana meesha waxa quray ku haystaan waa xildhibaanada marka la dooranayo iyaga magacawda xildhibaanadii dadka loogu tala galay 3 sano tarbay haydan yeeshaano mid iyakaaba markii horeba la tagay markii horana iyaga magacaabay haddadanna waxyaalaha farmaajo uu leeyahay waa su'aal adag wuxuu ka ogolaaday Siciidani inuu haddana isagu soo magacaabo wuxuu uga jawaabi waayay laano concessionka ina danina waxa ugu weyn oo xamar ka rabaa waa in uu noqdo sanadka iyo house-kaba dadka loo magacaabayo maakhir inuu isagu personally inuu personally isagu Puntland laga marka isagu cod u helo isagii hadhowto de wuxuu noqonayaa nin la yimaada inuu yiraahdo anaaba istaahinana madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo awoodiisa yaa de muuqanaysa haddana wuxuu ku darsaday Jubaland oo alliance-ga dani wuxuu dhisaya qaabka wuxuu ku noqon lahaa istiraatiijiyadda uu ka shaqeeyo isaga iyo ina Faroole iyo Cabdi Wali prime minister wuu ahaa ina farmaajahana prime minister nimada sabab uu ahaa inuu markii horena wasiir ka dhigo markii dambana prime minister nimada markii Kampala la isku qabtay ee raba inuu isaga iyo Faroole iyo Cabdi Wali intuba waxay ay kuuriga ugu jiraan nin walba inuu xamar ama number 1 ka noqdo ama number 2 inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo la'aanta sool iyo sanaag maakhir ma hawaysan karo hadda hadiiba alliance iyo tol siyaasadeed Jubaland ka helayna de wuxuu leeyahay muuqatana waabatay ka hor yimaadeen ina farmaajo iyo cilmigan oo la waday 3 gobol waaba takhasab ay noqdo heshiiska ay galeen horta koo wixii wax lagu dhoobdhoobi karo 100% waa la jira laakiin haddana xal ma noqonayo oo haddadan aan joogno soo maanta salaasama ma hubno wiika bacdi waxa ay ku heshiiyeen inuu haddana sii soconayo laano marba nin cadhooday oo isagu dan qaran iyo dan maaragtay xitaa meesha uu ka hadlayo aan ka hadlayna dan uu personally isagu rabo danaha iska hor imanaya oo de waxay noqonaysaa Soomaalida dadka waxay u badan danaha xoogga saaraya danaha anigu wixii lagu heshiiyaba haday noqonayaan wax inoo midho dhalaya 100% waa taageersana in meeshaas ay degto oo adduun weynaha midaal baynu ka nahay marka laga hadlayo failed state ama dawlad burburtay oo wixiiba meesha ka baxday Soomaaliya ka koowa magaca adiga ma laga yaabaa inaad soo sharaxdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya maya anigu han siyaasadeed oo dambe igu hadhay daabaanahay Geeska Afrikana wax badan oo fursadaha hadda ka muuqda
oo siyaalo badan oo taariikhdu waxyaalaha horeynan arki jirin baa inoo muuqda. Etoobiya lafteedii baa gelgelanaysa. Dadka hadda aaggan aan joogno ee maamulkan Soomaaliyeed oo haddaba ayba tahay meesha qudheen nabad iyo xasilooni ka muuqato. Waxaan cali ahaan qabaa Soomaali isu timaada door weyn buu ku leeyahay dadka dhulkan degan iyo dadka waqooyiga degan. Labada meelood meel ficil iyo xamaasad iyo shacabka ah oo Soomaali la isla raadiyo hadda Hargeysa iyo Jigjiga meel aan ahayn kama bilaabmayaan. haddii Soomaaliland madaxweynaha la siiyo caasimadda Hargeysa laga dhigaa qolata inay midoobi karaan labada wallaahi la islaba soo qaad sidaan maqlayo laakiin bahasha ku soo boodada laga fiican nimankanu dagaal bay galeen gariya gardarraba dadkoodana waxbay ku kiciyeen waqti qaadanaysaa wixii in fahamka dadka lagu noqdo oo si dhaba wax looga dhaadhiciyo oo loo tuso danta ay hadda intay haystaan inay u fiican tahay in ay mid weyn ka mid noqdaan iyaku ooba ay leadershipka la rabo hadday madaxweyne iyo caasimadiiba la siiyo dee laakiin laba ninoo qol madow isku xidhay arrintaa ma go'aamin karaan. dadkanna waa lagu beeray nacayb koonfur waa lagu beeray waa layna xasuuqay waa lagu beeray qabiil ahaan baa laynoo laayay waa lagu beeray wax rajo oo aynu ka leenahay meesha ma jiro. yaa ku beeray leadershipka SNM baa ku beertay. SNM waxay of course iyakuna waxay dagaal ku galaan bay rabeen haddaadan dadkaaga adaa yaqaana aadan jahayn karin oo wuxuu la qiimayn oo u tilmaamaynin dee halkanba oo analaf lagu dabamari karaa maahee dhibaatooyinka hadda Somaliland gudaheeda ku jira umaba gelayno laakiin waxay micno ku yeelan karaan oo iyaka laftoodu isku duubnaan karaan hadday wax Somaliland ka weyn ka mid yihiin oo danaha ay leeyihiinna iyaka oo ay soo jeedaan oo ilaahay caqli iyo xikmad haynagu wada manaystee ay xisaabtamayaan inay waxay diideen iyo waxay ogol yihiin laakiin madaxweyne ku doonayaba ha noqdeen wada hadal rasmi ah oo kala leh heerar kala gooniya oo bahasho hadday tartiib u bilaabanto la isla ogolaado wada hadalkan wixii ka soo wada baxa aan sugno laakiin haddii laba madaxweyne ay ku sii isla soo qaadqaadi karaan waa meesheeda. waayo siyaasiyiinta inta badan hadda waxa kulmo waa siyaasiyiinta shirka ugu dambeeyay hadda madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale waqti uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Bixi Solomon Dekan laftooda Farmaajo wuxuu ka cabsanayaa in waddanka hadii la kala qaybin lahaa Somaliland travel siin lahaa wuxuu ka cabsanayaa shacabka Muqdisho iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed koonfureed Muuse Bixi laftiisana si la mid ah inuu shacabka Somaliland sidaa sheegtay SNM inay ka dhaadhiciyaan in dadkan la xasuuqay inay Soomaaliya la midoobaan inay dadkan rabin labada dhinac soo muuqato siyaasiyiinta siyaasadii hadday taa tahay si fiican baad ba u dhigtay soo in la faguro oo si tartiiba oo hadday noqonayso technical committees hadday noqonayso wixii Soomaaliya arrimaheeda danaynaya oo si kalsooniya looga wada shaqeeyo laakiin nin safiira ama laba madaxweyne yaa yidhi wixii maanta ka dambeeya camankan iska shumaynaynaa waa isu soo boodnay ma shaqaynayso. xisbiyadii laftooda culays bay war xisbiyadii iyo shacabkii iyo saxaafadii iyo waxaan in la bisleeyo weeye in la bisleeyo yaa loo baahan halka ugu dhow wuxuu noqon karaa waxyaalaha haddaba lagu tuurtuurayo ee haddaba waxyaalaha la sheegayo waxa la yidhi madaxweyne inuu noqdo qof waqooyiga laga doortay inuu madaxweyne noqdo waqooyi kale maahee waligaa reer Sheekh Saxaaq qof laga doortay inuu noqdo laakiin laba term ama saddex term baa la isku hayaa ma 8 sano ay noqono waa laba term mise 12 bay noqonaysaa waa saddex term yaa laga doodayay de waxaas waa quudan jiran qoryo u goro waa arrin aan la bislayn oo in la yiraahdo madaxweyne hadda lagaba murmo imsa jeeru madaxweyne ama isagu ama kuwaas oo ahaanaya waxa ka horeysa inta ma maqasho la gaarin war wixii waxna aan qalana mindiyahana qarsano laga fiican dadkan u qancin buu u baahan yahay kuwa xamar jooga iyo kuwa halka joogaaba in badan oo xamar joogta war Soomaaliland iyo warkoodan jaqjaqadoo naga dhaafa waa aqaana waa jirta kuwa halkan joogoon oo leenaka iyo koonfurayso ma iman karno
laakiin haddana waxaan ogahay labada dhinacba xidhiidho hoose oo ka dhaxeeya oo qolyo Somaliland ah oo xamar dawladnimo iyo qarannimadaas maahee qabaa'ilka qaarkood ama xisbiyada qaarkood ku xidhan oo kala doodaya oo siyaala u arka wada shaqayntoodu inay danahooda ku jirto kuwa xaggaa joogaana kuwo laftoodu in badan oo hadda booramadan iyo khaasatan Hargeysa xaasaskoodii kuwa ugu magac dheer xaasaskoodii iyo reerahoodii wuxuu ay u joogaan haddaba bahasha dhuumaalaysiga laga fiican intaan Soomaalidu midhaynayadaaba sagaaradu inaga fiican waxaan qarsoomayn bay qaraysaa intay meel ku kaadido ama ku xaarto ciid iyadaaba toilet training inaga fiican innagu waxba haddii baadiyaha la joogo banka loo baxo waxba lama qarin macnaha inay isku yimaadaan si rasmi ah loo wada hadlo si rasmiyana loo hadlo wixiina la dhiso wixiina foundation uu yeesho asaas inuu yeesho waqti bay qaadanaysaa dadkana loo bisleeyo la qanciyo waana qabaa dadka reer waqooyigu waa la qancin karaa anigu wataan xalay ahaan qabo waa la qancin karaa waxa dantoodu ku jirto iyaga oo soo jeeda oo xisaabtamaya waa la qancin karaa laakiin bahal la dhuundhuumanayo in shaki sii galo iyo nacayb mooyee waa in la sii kala fogaado mooyee waxay ku imanayso wanaagii ma wajiro wax natiijo ka soo baxaya laana waa ognahay farmaajo iyo abi iyo Muuse Biixi February waxay ku kulmeen Addis Ababa waxbaaba hadal baaba bilaabmay ka bacdina waaba tii Djibouti la isugu yimi khudbadihii la akhriyayeen waa maqlaynay waxa la leeyahay waa la isla soo dhaweeyay ee bulshada qolyahan international community-guna ay dhinacyada hayaan ay wadwadaana waa maqlaynaa wixii la isuma keenayo marka run ahaantii opportunity waa muuqdaa laakiin si degan oo xikmadaysan in looga doodo oo loo la faguro oo iyada oo la miir qabo wixii lagu heshiinayay marka lagu heshiiyo waayahay doorkiina idinka dhaqaatimatiin xuya naam doorka iyagu wuxuu yahay annagu Somaliland dhul ahaan waa nahay taariikh ahaanna waa nahay laakiin haddana qabaa'il baanu nahay qabaa'il ingiriisku wada xukumi jiray waxaan la ogeyn dadka Sool iyo Sanaag u dhashay ingiriiska heshiis lama gelin dagaalkii Maxamed Cabdilla Xasan bay dhulka ku soo galeen qabaa'ilka kale sayla ilaa laga gaaro ceelaayo qabiil walba oo degani oo reer Sheekh Saxaaq iyo Warsangeli heshiisiyay la saxeexdeen waxa kale xuduud caadiga ah ingiriisku sameeyay xuduudka caadiga ah iyo degmooyinkan iyo sidan wuxuu jireen nimankan waana leesiyay dhulkana waa la wada degaa sida Puntland macnaha ay u tahay Puntland ayaa dhulhaan idinka Somaliland u tahay Puntland mar walba koonfur bay ahayd mar walba Talyaanigi baa xukumay annagu mar walba waqooyigan raas annaga iyo Puntland muddo yar oo nugaal gobol nugaal la yiraahdo la sameeyay oo aan badnayn sanad xitaa ahayn yaan weliga maamul wada noqon haddaba midda meesha taala ee qolyahana aan anugu ugu imi maamulkii hore meesha joogay madaxweynihii hore joogay heshiis baanu galay muddo 3 sano ah yaanu wadanka dibadiisa isku arkaynay Addis Ababa Djibouti Nairobi Imaaraat heshiis baanu October 20keedii 2019 ku galay Caynaba heshiisku waa WhatsApp YouTube-kana waa ku jira heshiiskaas waxay ahayd kow Somaliland la wada leeyahay inaan dhisno marka Somaliland la wada leeyahay oo hadii ixtiraaf raadinayso la wada raadiyo hadii gooni la ahaado yaa ku shishan waxaanu ku heshiinay exactly Somaliland ama wax la wada leeyahay oo cidina marti ayaan ahayn cidina magan ahayn waa in la wada dhisaa heshiiskuna taasaan noogu taala heshiiska waxa noogu yahay waxba waxa qure ka dhaqan galay waa laba arrimood kow colaad baa jirto waa isdilaynay oo ciidamadooda iyo annaka ciidanka iyaga khaatumo oo de shacabku leeyahay reer khaatumo leeyahay yaa la dagaalamay waxaan isku haynay dhulka iyaga annaka ciidamadiina naga baxeen
dhulka iyagana inaan xoraysanaanu rabnaa heshiiska inta laga dhaqangelinayo aan kala joogna adoo jeedaa maya heshiiska waxaaba looga dooday nabad aan isugu nimaadno oo wada hadallo oo waxaynu wada leenahay aynu dhisanno heshiisku waa kaas waayo laakiin mar haddii aad maamulka ka mid noqonaysaan ciidamadii laftooda in la qarameeyo maadaama ay u baahan yihiin dee taas waa arrimaha detailska loo gelayo arrimaha noogu yaalla meesha dastuurka in la furo waxaan la leeyahay hadda baarlamaan baa laga hadlayaa baysku waxaa la yidhi 1960 buu noqonayaa 60 heshiiska dhamaystirna macnaha la jeedaa heshiiska in la dhaqan geliyo kadib markaa wixii kale aan ka hor wixii kale ciidamada in la qarameeyo ciidamada tan iminka Soomaaliland miisaanka weyn ku ah ciidamada beeleed yaa dhulka jooga la caagaystay ilaa 6800 oo ciidana yaa la leeyahay baa Soomaaliya sanaag Soomaaliland mushahar siisaa hadda xiriirka Soomaaliland idinka waa sidee xiriirka Soomaaliland waxna waa noo bilaabmeen kuma aanna kala kacin waxaana ku rajo weynahay inay iyakana dantooda ku jirto annana ku jirto heshiiskaas inuu hirgalo hadduu hirgali waayo de Muuse Bidiino iyo Ciise Bidiino wala iska kala tagaya waxaanu ku heshiinay oo aan anigu cali ahaan oo khaatimo matala aan Hargeysa ku joogayo haddaanan ku heshiinay ma jirto waxa uu meesha taala meelaha iyakana waa ku idhaahaa Soomaalidu waagii hore waana la dagaalami jiray xikmad iyo gabay iyo wax baa la isu marin jiray gabay hore jiray oo qoliyo aagaasa reer Buuhoodla iyo qoliyahaas marka dagaal iyo wax ka dhaxeeyay qoliyo gargaa timi xagga ka timi sidii ay filayeen in loo soo dhaweeyo looma soo dhaweeyo nin marka gabayaa meesha joogay yaa yiri midin ka hortag intay nimanku ama gabi lahaayeen ama iska tagi lahaayeen yu gabi tiriyo leeyahay saddexdii cashaba waa intii sahan ku laalaaye waa soo sidnaa xiriir hisaabka loo talay ii dorsal fududa wuxuu sugayay muu dhowro ana waxaan si roy gabarkaas la oran doonaa ninkii khaatimo meesha u joogay waa sal fududaaday wixii oo laga shaqeynayo yu ka dhaqaaqay hadda 3 sanaan joogaa meesha hadda ciidina ay oran mayso waa sal fududaad haddii dawladda Soomaaliya ay maamul goboleed u aqoonsato Sool Sanaag iyo Cayn halka ugu dhow maya weligeed xamar kama suurtoobayso dawladda Soomaaliyeed oo arinta ku dhiiranaysa sababtana waa ku sheegaya xamar baarlamaan baa jira Puntland xildhibaanadan meesha joogay waxaan ay urursatay baarlamaankay ku jiraan kaabinetkii bay ku jiraan sanadkii bay ku jiraan qoliyahan reer Sheekh Saxaaq ama dir waqooyi iyana xildhibaanay leeyihiin iyaga kaligood baaba dhowr kontomeeye leh labada qolo midna ka suurtoobi maysa inay ka ogolaadaan maamul xamar jooga in maamul loo dhiso Soomaaliya Sanaag shacabka xamar joogaana dad u dagaalamaya oo iyo miidiyada meesha midnimo Soomaaliyeed iyo dadkanu kan iyo kaasi waxa ay istaaylaan marna ka suurtoobi maysa hortaagan in maamul goboleed guud loo aqoonsado waxa hortaagay Somaliland iyo Puntland marka Puntland hadda waxay ka soo tarsaday ogna Soomaaliya sidaa sheegtay waxaa tiri maadaama ay rabaan inay kontrolaan kuraasta yes marka idin laftiin inaa guddi madax banaan oo arrintiin xaqii ka maqnaa inay u raadiyaan dowladda federaalka iyo caalamka hadda ilaa markii maamulkan la sameeyay waa 8 sano moot 2012 January waa 8 sano waxba iskama aanan hakranayn laakiin waxa meesha yaala cid arinta ku taageerta dadkan ama qabiil ha ahaadeen ama dad leh xuquuqda wartay dadkan inta idinku baleedihiin reer Sheekh Saxaaq Soomaaliyeed waxaanu xamar uga goosanayna danaha iyagii baan ku dhaxarka weyn anagana maxaa naga horjoogeynaa danaha iyagii baan idinka dhaxarka weyn yaa kugu taageeray marka kaliya meesha dantiina ka dhaxarkeysaan ayaa diyaar u tihiin marba ka mid ahaataan annaku waxaan labada kama maqnin annaku waxaan qabaa first step talaabada hore inay noqon lahayd annaga iyo Soomaaliland waxaan wada leenahay marka annaku miir qabna waxaan u qabaa in Soomaaliland la wada leeyahay ay noqon karto meel laga raadiyo Soomaali dib loo raadiyo haddii Soomaaliland ay ka mid noqon lahayd Soomaaliya si rasmi ah maamulka kadib hadda u ogolaan lahayn inay Soomaaliya ay ka mid noqdaan Soomaaliya Sanaag iyo Cayn heli lahayn cadaalad kula tahay
Somaliland iyadoo iskaba socota iyagaanba hadda waataynu hore uga hadalay iyagaanba rabin in Somaliland ay ku biiraan haddii ay Soomaaliya ka soo qaadeen ka mid yihiin waxaan ka hadlaynaa caqabadaha hortaagan soo lisanaay waxaa Puntland Somaliland hortaagan haddii maadaama dhulka hadda Somaliland ay maamusho haddii Somaliland ay ogolaan lahayd nidaam isla ogolaya in Soomaaliya ay ka mid noqdaan ama la midoobo ma isleedahay culeyska hadda soo lisanaay ceesaar ma ka diilaha tamay marka annaku waa arintu inta waaba ka sahlanaanaysa haddii Soomaaliya marka laga wada mid noqdo de Soomaali weyntaasana wax la qabnaa marka muranba meesha ma yaalo laakiin ujeedadiina Soomaali goboleed ma heen maamul gooni noqotaan annaku waxaanu maamul gooniya ku noqonaynaa marka ay labadan maamulna hortaagan yihiin xamarna ay waxba noo hayn markaasaan rabnaa maamul gooniya natacaamil maca shaytaan marka وحلالة وحي أنا ندنا هيجا هنكو قارين. أنا إلا حتى هذا دكتور الشيطان قال تعب مش أنا وجده. صح وحنا ولشينا اللي نقولوا البدنية هذه كيف فكرة يساعي. ماشي الله على ماشي دتك يجوا كوبة بعديان هذا سومالي يوم عم بفعنين أما سومالي عم بفعنين واحد بدني أول يا ولي باللجسي الليتا وحنا هدا يصير سعدانا وكسي الدريان هدان هدا وحلقة قبلنا مدة قرية أيو نقول دونتا وأنا هرين dadka mar walba waxa u furanay waa inay dagaalka xigaan hadii laga gudbo maamul goboleed oo loo gudbo nidaam xisbi oo doorasho cad iyo qof la gaaro Soomaaliya sharci aan dan muta yaa gaarsiinaya deeta hadii sharaxan dawladda Soomaaliya ay gaarto qof cad in la doorto oo maamul goboleed meesha ka baxaan oo awoodii maamul goboleedka meesha ka baxdo qof walba codkii fawd soo baxaya taas waaba inta la rabay laakiin intaan nool ahay taasaan markaynu waaqaca dhabta ka hadlo markaan hadda ka hadalno ahzaab saa u dhisanna ma jirto waxayna qabiil baa lagu meereysanayaa waa qabaa'il markaynu doonana qabiilka waxaynu aragnaa wax jaahilnimo iyo maaragtay sidii ibn aadanku u soo bilaabmay muxuu ahaa meelihii ugu horeeyay meelahay la soo maray قالوا أما تاريخ مركز لقى هذا يوحى لابن آدم وحكوا بلعبي أما هنا حولها وجوار صدان أما هنا وايلد فروتس برتا إلى هي وحكب حاي حنان مركز سي هدنا آدينين وحبيرتان مركز سي هدنا ورشدي وحساسي وسعدان إنك الصومالي هدنا هاي تاهران ولي شوقنا وقبائله وهدنا قبيل كي مرنا والجي يحيى haddana waxa qure oo ku socda oo aan meel ku joogsanayn oo aan horumar badan lahayn waa taa qabiilka arinta oo marka anaga iyo Somaliland haddii aanan heshiin aniga dad baa mas'uuliyadii dhiibtay madaxweynahan u ahay waxa waajibkaygu yahay iyaka intaan ku noqdo inaan idhaaho wixii aan ku maqnaa suurtoobi waayay laakiin haddana waxaan rabaa laabta cid ii garaacaysa ma jirto xamarna waxba kuma maqnaa Puntlandna kuma maqnaa in waaqi markaa uu noqdo inta midna kama haynee maxaa inoo dana in dib loogu noqdo shirweyne la isugu tago isaga laftiis dadkan intooda badani tusbax bay wataan abtirsiina laakiin wax laala wax loogu hayo oo Puntland iyo xamar ugu haysaa ma jirto halkanna iyaga qudhadoodu dadka xooggiisu dadku ilaa ceergaabo ilaa danood iyo wardheer iyo daadsan yahay halkan qudhadeedana wadaadkii muxuu yidhi tayday cuslaysay maxaan tarin inay cawdo idinka laftiinni yaa deer raba wixiina inaad dhistaan laakiin anigu waxaan qabaa wixii halkan aad ka dhistaan iyo wixii Ethiopia ay ku dambaysa inay noqonaysa inay aad u taabanayso waxay Soomaaliya ku dambayn doonto waxa loo magacaabay wasaare cusub wasaare cusub muxuu soo kordhin karaa Soomaaliya maxaad ka taqaanaa wallahi inaan personally aqaan ma aha waxa quru soo kordhinaya waliyahan farmaajo ku kacsanaa ee magac qabiil ugu kacsanaa horta waa ka kala degayaan oo nin reer galmuduga yaa la magacaabay awal tolis ururiyay oo guud baa jiray kii inta la filayayba kulli waa lagu kala hadhay waaba laga yaabaa markaa intii muddo inuu fursad u helo
in uu wax ku dhiso doorashadana kolley doorashadii nimankii ugu qaylad badnaa lahay doorashada saacad dib looma dhigayo yaa hadda waxay leeyihiin dee technically waxba ma suurtoobaya November baanu qabanqaabadeedii galaynaa oo doorashadii February baa la qabanaya dee kuma suurto even hadday noqoto one person one vote qorshayaasha farmaajo hirgal karaan qorshihii farmaajo ee qofku fardi qof walba inuu cod leeyahayna meesha ka baxday doorashadii wixii ay iyaku ku dagaalamayeen dib ha loo dhigay isagaaba ogolaaday haddana iyakii baa leh technically ma suurtoobayso marka waa la isla jala butaynayaa meel ay salka dhugi doonto ma naqaano laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bal waxa ay ku sii heshiiyaan oo wax ku sii wadaan oo doorasho kulley waxaan anigu qabaa ugu yaraan sanad dambay qaadanaysaa ninkan prime ministerka ana isaga qudhadiisaaba waqti u baahan uu isku tuso nin wax qaban kara qoflanta muddada hada tamay hadda waaba doorasho loo dareerayaaba hadda November yaaba axsaabti inkastoo leeyahay xisbiyadii waa laga tagay haddana indirect waxay noqonaysaa intii hore 4.5 la aado hadana 4.5 laftiisi yaan heshiis lagu ahayn oo sidee yaa qabanaya wali waa la isku haystaa waaba la sheegay meeshii la lahaa sanadka hadda waxaaba magacaabaya nimanka gobolada maamula ayaa jooga madaxweynayaashaasa sanadka wuxuu maamulay marka aad la kulanto siyaasiyiinta Soomaaliland ama siyaasiyiinta kale ee Soomaaliya ma kugu yaraan magaca madaxweynaha qaatumo ha dad diidaya oo odhanaya Soomaaliland madaxweyne quray leedahayna waa jira laakiin madaxweyne Soomaaliland kama hadlayno anagu organization baana organizationku guddoomiye madaxweyne waa yeelanaya laakiin waxaan waxba garan yay dhibaysaa madaxweyne aniga qudhataydu nimanaad rabto inaad garcada uga gashaan in iyadan balaysu iman ay dhan isu gurfiyaan oo yiraahaan waxaygii baaba lagu murmaya aniga qudhadaaba uga tudhaya hadayba laga badaynayo anaaba la balwaatay anigu tayda jeebka aan bagashanaya bal waxaan aynu laakiin ku wada hadlaynaa haddaadan ogolaan heshiiska wax laala waxaan sunnahay ma jirto inaad ka tanaajiso macnaha in lagu yeero madaxweyne haddii dadka ay ugu jirto dad diyaar u tahay te madaxweyne lagu yeero macnaha igu fadhidaa ma jirto dad baan ka wakiilahay inkasta oo halkan aan joogo iyo meesha aan ka imi boqolo walba ay leeyihiin war ninku waaba nin wuxuu ahaa loo hanweynaaye maxaa u geeyey Hargeysa maxaa geeyey adeer danta Hargeysa waxa igu maqaalaa waxaa jiray sheeko nin geeliisii lumay markaas isaga wiil dhalay baa geeli raadiyay waa kaliilo waqti kulul wiilkii baa yidhi Allah abo meeshaynu maraynaa kulula abba geelini baa maray buu yidhi waxaan u joogaa oo igeeyey waa danta ummadaas anigu hadday tayada cali tahay laba wiig ma joogin laano danahayga kale iyo waxay kala qabsanay yaa iga muhiimsanaan la laakiin yaan waxba bilaash la isu akhriin dagaalan cidna ka dhabahayna yuusan anaka na gelin nimanka haddaanu nabad wax ku helaynana waa daba jooga hadday noqoto oo shacabka iyo waxgaradka iyo culamaa diin iyo bayaamish waxa arintaa diida anigu ma hayo laakiin maamulka iyo go'aanka cidii lahayd arinta waxaad moodaa inaan weli ogolaan oo aan diyaar u nahayn waayo waxaa tahay ra'iisul ugu horeeyay dowladda hadda haatan madaxweyne farmaajo ka dhashay Soomaaliya sax حتى الوزاري يقول الوزاري يقول شو أركان ما يتر رئيس الوزراء وحانها هدي اللي يقول تاسوا وحان صومري تقفك أنت سين لاقره يا هبون نكو هدو السفيرها هدي ومدحوينها هدو وزيرها وهدونا يبهن نقد مدحوينه هو إن لو حلقان وأسلوب ماركت مثلا حتى سياسي أقوياً محيط رتها حلقة سومالية هاتم يقولوا محمد قطع والله حلقة سومالية يقولوا أنا وحي يقوموا قطع إن سياران هذا وحلقوا دوران إياه هدان لقوا برحين شعبك وحقور ربو يا هدان أحزاب للسماين أرنت waxay una noqonaysaa ila meerayso waligeed taasal lagu jiraya intay arintu qabiilka tahay xisbigiina qabiil ku salaysan yahayna
cid mas-uul ah oo Soomaaliyeed oo hadda waqtigii dawladihii hore ugu horeysay Soomaaliya madaxweyne iyo prime minister iyo wasaaradda iyo xildhibaan iyo dadka ninka ugu badan baa elementary school ka baxay dad iyagu wax isbaray oo akhrisan jiray waa jiraan laakiin wax dadka hore wax bartay kuma jiro laakiin leadership qualities bay lahaayeen oo dad badan oo waqtigaa joogay yaa haddana habkay rag maamul ama dadka u maamulayeen iyo hankay lahaayeen iyo yoolkay ku hiranayeen dee waa lahaayeen hadda dadkii anigu halka kama warhayo laakiin Somaliland oo kale sanadkii jaamacadaha ka jira ilaa 9,000 oo arday baa ka soo baxa anigu markaan ka baxay secondary school Sheekh kalaaska yagii 14 baan ahay waa secondary school waa ka quree wadankaas oo dhan jira xamarna 2 secondary school baa jira wax jaamacada ka baxa hadday ugu bataan 20-30 bay ahay marka dawladnimada la helayaa waxaan badnayn oo waqooyiga iyo qolyaha koonfurta marka aniga waxay ugu muuqataa rajada Soomaalidu kulley waa jeclaan lahaa inaan ka ag dhawaado waa jeclaan lahaa hadda ninku hadduu siyaasad ku jiro saad doontid wax ma sheegi kartid uma qori kartid inaan wax qorana waa jeclahay meel jaamacad ama jigjiga ha noqoto ama sababa ha noqoto meeshay doonaysaba ha noqotee haddiiba arrinta aan wada ay shaqayn weydo waa jeclaan lahaa meel aan u rogto geeska Afrikana aanan ka fogaan oo arrimahan ka socda ama warkeeda inaan hayo ama aan wax ka qoro waa jeclahay hadda waxa ku soo tahay dawladda Soomaalida tan isbeddelka dadka ku noqdo isbeddela wallahi de runtii waxa aan maqlaaba horta nabadda ugu weyn laakiin de halkan kuma go'na waxa sababa ka socda halkan nabad hadda waa muuqataa oo gobolka qura ilaa heer nabad ka jirto way horena markii horeba Soomaalidu de waa ahaayeen shantii qowmiyadood ee maamulka iyo waxaan dhisay laakiin effectively maamulka qoliyaha TPLF ay dhiseen wuxuu ahaa maamul highly centralized oo wax walba awoodoo dhani ay taalo Addis Ababa waxaan u malaynayaa hadda siday wax u socdaanna waa ilmi roganaysa waa foolanaysa laakiin waxay dhali doonto runtii wax gooni u ah kilanka ma noqonayo iyo ismaamulka Soomaaliyeed waa waxa sida Ethiopia iyo geeska Afrika oo dhan wax ku dambeeyaan laakiin hadda jabhadii iyo maamulkii inay wada shaqaynayaan oo laba xisbi inay la heshiiyay oo understanding uu jiro oo maamulkana xisbigan xaakimka uu ka mid yahay qolyahan jabhaduna xisbi mucaarida ay yihiin laakiin Addis Ababana iyo xagga sarana in la isfahmay ay heshiiyeen halkanna de maamulka ay heshiiyeen oo ay hadda wax carqaladihii ay muuqan taas runtii waa ka isbeddelka ugu weyn muuqdo iyo nabadan de dhulka taala oo hadda haddii jabhaduna meel si ay wax u aragto maamulkana si kale u arko waxay u noqon lahayd de jugjug meeshaada joog way xilliga wasaaraha Soomaaliya adeeg sida ogna waxa yara mas'uuliyiinta federaalka ee ku jira Soomaalida hadda waxa ku jira federaalka mas'uuliyiin hadda waxa jira mas'uuliyiin Soomaali ah oo xeer federaal ku jira way ka mid tahay wasiirada federaalka sida mas'uuliyiin kale may waa runtii dadka dhex muuqda waa jiraan oo especially Ahmed Shide waa nin Soomaaliya nin maamulka ka dhex muuqday oo Soomaaliya oo marka ilaa hadda mar walba ama wasiir hore maraan anu kala kulmay Addis Ababa wasiirka gaadiid iyo majxubu waaga madheena warfaafinta email buu ahaa kabacdi wasiir ku xigeen maaliyadda haddana waa wasiir ku xigeenka maaliyadda wasiirka maaliyadda marka waa positionska ugu culus ee habka federaalki waana ku faraxsanahay nin Soomaali inuu awoodahay aad iyo aad baan noogu faraxsanahay filsan oo kale oo gabadh dhalinyaro oo wax baratay oo active ah oo ku dhaclay oo isa soo saartay inay ka mid tahay aad baan ugu faraxsanahay aad bay u dhirigelinaysaa in badan oo Soomaaliyeed qof Soomaali oo dhowr iyo 30 jir ama 40 gaadhay dhalinyaro ma aha
cimrigeenna intaynu ku gaarna ama average afartameeya waxaa leedahay boos weyn oo haweenkii iyo carruurtii dhallinyaradii meel ay mithaal u noqon karto dadka madoobay hadda gabadhaas la yidhaah Kamala Harris vice presidentka dad badan oo aqaliyaadka dadka laga tiro badan yahay ama ha madoobaadeen ama muslim ama immigrants ahaadeen yaa runtii u arkaya inay iyana rajo leeyihiin inay iyana meel sare ay gaari lahaa markaa filsan oo kale gabdho badan khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo wax bartay yaa sidaa iyadu ay ku soo baxday aan ugu soo baxay waday u furtay mithaal fiican bay u noqonaysaa waana ku hambalyeynaya waana ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa dadka un mustaqbalka geeska Afrika dowrka ku yeelanaya sidii wax loo qaban lahaa ee nabad waarta loo gaari lahaa ee integration iyo isu imaado geeska Afrika oo dhan ka qayb gala historica taariikhiga inay ka mid noqotana waa ugu hambalyeynaya waana ugu rajaynaya waxaan siin doonaa hadalkaada ugu dambeeyay adiga oo soo gabagabeyn doona hadalkaada ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan magaaladan Jigjiga imi aad bay dhiiri gelinaysaa waxyaalaha hadda ismaamulkana sidoo u shaqeynayo ee Addis Ababana uu la shaqeynayo waxaan rajaynayaa in badan baa iyaga Soomaali lahayd Soomaali galbeed oo wax badan oo sacrifice loo sameeyay iyakuna dowrkooda inay cayaaraan oo kow iyakuna heshiiyaan oo leadershipkii loo baahnaa iyo yoolkii ummadda Soomaalidu lahaan jirtay inay noqdaan dabku meeshu ka baxayo ifku ka muuqdana inay noqdaan kana warhayaan oo kulley waxa xamar yaala waana ina wada khusaysaa inaan la niyad jabin laakiin in badan oo u tafaxaydata ma aha inaan anigu meesha ka dhex muuqdo laakiin wanaaga iyo ka qaybgalka dhismaha iyo haddii loo dareerayo axsaab mabda iyo qadiyad ku sugan magaaladan SYSH markii la aasaasay 1943 baa SYSH la sameeyay magaaladan meelihii ugu horeeyay ee ugu xoog badnaa SYL bay ahayd waxa uu dhibaatada keenay markii Ingiriisku 1948 wax kala wareejiyay dhibaatadii gaadhay dadkii lagu laayay iyo waana la socdaa haddana waa istaahishaa leadershipka Soomaalida iyo magaalada aan joogay Hargeysa على أهم وحن قبا لبدا مقالو meelaha rajada ugu weyn aan ka qabo Soomaali weyn hadda waa la isu socdaa waa la iska warhayaa inay dib u madoobaan oo de aqli iyo xikmad Ilaahay ugu manaystay hadiiba ay noqoto Horn of Africa oo dhan baaba isu yimi hadii Soomaalidu markaa iyagu Horn of Africa soo isugu timi intooda lagu ururin karo waa rajo fiican ayagoo dawlado kala duwan iyagu haday doonayso hal dawlada haday noqonayso meeshan aynu joognaa wanaaga Horn of Africa door weyn bay ku leedahay laano dadkan hadayaan raalli ahayn hadayaan kalsooni jirin hadayaan u arkin dantoodu inay sabab ku xidhan tahay Soomaali kale oo Ethiopia u arkaysa danay leeyihiin inay taalaana ma jirto marka warkayga waxaan ku soo koobaya ma la dhihi karaa fargelinta Ethiopia Soomaaliya ku heshay way dhamaatay wallaahi dawlad daris leeyahay weeye haday Soomaalidu helayso iyaba waa fargelin lahaayeen iyaba wax danta Soomaaliya taa laguma laakiin boqolkiiba laguma eedayn karo laakiin iyaga sidii hore lama waa jirtaa gobolaysigan iyo walwalka Jubbaland laga qaba iyo ciidamada Ethiopia joogay iyo waa ogahay waxyaalaha dareenka waa u qabaa iyo walwalada muuqda laakiin anigu waxaan qabaa tanta Ethiopia iyo maamulkan hadda joogaana kulli inta aan dhawaaqooda iyo aan ka maqlayno wax runtii aan ku hiran karno oo yoola waa u eegay oo integration kan iyo la isu wada yimaado oo haday noqoto Eritrea ama Ethiopia oo Sudan ama Soomaali shirarka iyo hadallada meelaha laga sheegaya waa warkaas inay sii socdo
waa rajaynaya maadaama geeska Afrika iyo midoobayaan Soomaalidana inay saas iska warhayaan saa isaga warhayaan haddiiba la midoobo haddii even economically la midoobo waa maqlayaa Ethiopia weligeed waa ku taamaysay inay dekad yeelato Soomaaliyana waxay dadka Soomaalidu leeyihiin waxa ugu weyn waa baddaas danaha la leeyahay dekaduna macna waxa yeelanaysaa haddii suuq weyn ka dambeeyo suuqi weynana waa Ethiopia ilaa Afrikadaas marka tan moota Soomaaliya dekadaas inay sidoo kale isticmaasho integration lagu raaliyahay hadda aan midowno madaxweyne maxaa yeelana dawlad qura waxaan ba ka hadlaynay Hargeysa iyo Khaatumo ama Hargeysa iyo Xamar taadi sababana kaba fog laakiin wax lagu hiran karo oo danteenu ku wada jirto waa istaashawaat aad baa mahadsantahay adiga mudan waa ku mahadsantahay walaashiisa nabad TV ma aad baad mahadsantahay mahadsanid wasaare hawsha wad fiican sii wada waa mahadsantahay inta waxay noo wada daawadayaal barnaamijkii siyaasadda oo aad ka daawanayso TV-ga caalamiga nabad TV oo maanta noogu ahaa marti siyaasi weyn sidoo kalena ahaa wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya dawladda haatan jirta Cali Khaliif Galeer inta barnaamijkan oo kale aan kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa daawadayaal sidaas iyo nabad geliyo